canuga oo lagu tarbiyeeyaa ama lagu rabaayadayaa jacaylka Ilaahay subhanahu wa ta'ala liibaanta aakhirana waa lagu gaaraa liibaanta adduunyana waa lagu gaaraa limaada canugaaga oo diinka bartaa ama ku tarbiyeysaa waxa wanaagsan waxay ku keensanaysaa inuu birril waalideedna ku noqdo marka dhimata kadibna ku duceeyo oo uu ku galo booskii ahaa ولد صالح يدعو له أو قيبك أها أعماش أنجو إن قفك مركو دينتك بعد قصة وحين تصيصا أبا برويل كيسا معناها جعلك إلهي سبحانه وتعالى مركز كبعد إن أدونك كل يفسد أيضا آخرة يودي منتهى إن شاء الله تبارك وتعالى قصة وحين كان عدي ودن كمصر أبا يا ويلكيسا وحو كتر بيدينيا أسيقو صغيره السبيان أون قارين فهم كدينك انتي سكالي جعيلك إلهي ببريا يرانتو كبريا وحونا أودن ليه هاي إنو يمسكح ديسو لكورت جعيلك إلهي أوقب سبحانه وتعالى ويلكا يرأي صغيرك أبيه أيام مر والبا وحو ويلكيسا ويديا ويلكيغيو واكوما جعيلكاغو بل المهاج ما أنت ديل ويديو وكما جعلك محيك جواب لهاي وكما جعلك مركي لو ويديو ويل كان ير أبوه وحو برينو كجوابه جعلك يقوى الله سبحانه وتعالى مر ولبنا وكعل علياسي وقلبي سوء قبطسيو واي المهم مركي يهين ويحو لقسو عليو واي حفظان وين الله قرآن ووات عربتو ترادا من شب على خلق شاب عليه قفك وحي وكبر بارا أيو نقدا سومالدون أي ترى واحد برته وباسكا معناه واد قدام بيسا واحد برته halkaas baad ku bixi doontaa laga jeeda wiilkan yar marka waxa la baray markii la weydiiyo waa kuma xabiibkaagu inuu dhoo xabiibi Allah xabiibkayga ama kaan jecelahay waa Ilaahi subhanahu wa ta'ala barigi damba waxa dhacay inuu xanuunsaday aabihii sidaas wiilkiisa u tarbiyeynayay waxayna ahaayeen dad dan yar ah oo fuqara oo masaakiin ah markuu aabihii xanuunsaday waxa soo ziyaarinaya dadkii kale oo ehel iyo asxaabaha markaas ay wixii leeyihiin markay noqonayaan Allah yashfiik Allah ku shaafiyo wiilkii yaraa intii baa dhagto uga dhacday markaasuu isweydiiyay war Allah ku shaafiyo iyo Allah la sheegayo miyuu xabiibkaagi ahayn كومي كاحية يا كاحية أذيك إلهي عدنا كامحكتو إلا هو حبيب كاجيو أذا جعله أذوقه بإلهي أبها ويدي عافمات وورقات أقرب يصير إلا هو عنق يرو مكرني إني إلهي ورقات جارسي إن كله لكن إلهي وحو لبو أجيه والله صعدا حالك كما قرسنا هدي ورقات دنيا لقى قرئ سنجاري كرينين إلهي وداونا يا قلوبتا وداونا يا نيد يدنت لقى جيدو إلهي وأرك يا وحو البضاعي سبحانه وتعالى مركز وحاد عدي إنه كيرا أتجه يدي أو كيرا ضهايا وحن دنيا إنه ورقات قرأ ونقرأ حبيب كيجا oo ilaahi subhanahu wa ta'ala marka waxaan doonayaa uu yiri warqadan inaad geeso meesha boostada laga diro hooyadii maxay kaga jawaabtay ma garanaysaa may u diidinoo kama celin ayadoo xaaladaasi la yaabtay hayid ku tiro qoro warqadaada farqal qaloocan oo far caruureed ah ayuu wuxuu ku qoray xabiibkii Allah aabahayba xanuunsan إيشافي وكوخري مركز ورقدي قاد هويدي انتي ودبو ورقدي قادي وكوريدي بوستدي قولدي بوستدا كشقينيسي يا ورقده والله اخرنا يا ماشي ku socotee waxay arkeen warqada tan inay tahay warqad ka weyn oo ku socota Ilaahay subhanahu wa ta'ala aysan kari karin inay gaarsiiyaan arintan way la yaabeen oo way la fajaceen markaas ay dawladda u gudbiyeen qaybta arrimaha diinta quseysay waxay ku dhaheen warqad naga weyn baan aragnaa anaguna ma kari karnee bal arka adinka qaybtii diinta bal waxay shariicadu ka qabto dawladii markay warqadii gaartay intaysan dawladdu go'aan ka qaadan oo san ka fariisan arintan yaa lagu daabacay jaraa'idkii soo bixi lahaa subaxii buga koowaad waliba looga daabacay intaas kadib warqadii waxa arkay oo akhristay mid kamid ah dhaqaatiirta ugu waaweyn wadanka ayaa arkay arintan buu la yaabay markaas buu guriga nabarkiisa eega warqada ku qoran xaafadii buu yimid wiilkii yaraa uu la kulmo ku yiri warqada tan ma adiga soo qoray ilaa far ilmeed baa ku qoran buu yiri waxaan u qoray xabiibkayga oo Allah ah akhtarku wuxuu ku yiri xabiibkaaga ii soo ka diray xabiibkaaga uu ku shaafinaya aabaha aniguna waan ku daweynayaa ee ina keena cidiyo dhan buu raray oo isbitaalkii dajiyay odagiina sidii buu ku daaweeyay ajiib dawladii baa ka fariisatay dawladdu markay ka fariisatay kadibna
oy doontay inay guriga intay tagto odayga kan isbitaal iyo la raadisa caafimaad maadaama inanka cajiibka ah uu dhalay oo ilaahay uu codsanayo wiilkan yar ayaa waxay u tagtay gurigiyo wafaaruqa markay weydiisay dariskiina waxaa lagu yiri isbitaalka hebel buu jira oo doctor fulaan baa kaxeeyay bal ummadii ilaahay oo dhan baa u gurmatay limaada canugan yar wuxuu fariintiisa u dirsaday ilaahay subxaanahu wa ta'ala ilaahay waa kan kaga soo jawaabayo dawladii dhaqaatiirtii iyo dhammaan mujtamacii kale oo dhan baa lacag u soo ururiyo tacaawun iyo gargaar u sameeyay maxay waxa soo darajo ah ku gaaro odagaas ma garanaysaa wax kale tamaahan inankiisa buu waxa wanaagsan baray inankiisa xataa macno weyn fahansaneen diinta iyo islaamka iyo jiritaan ali waxa aan kala garan karin oo mumayis aan ahayn oo aqligiisu uu sadhameen yu haddana jacaylka alla baray markaasuu ku badbaaday adduunkii oo caafimaad ilaahay ku siiyay iyo maal iyo wixii dhan uu doonayay aakhirana insha Allah hadduu wiilka ka sida ku barbaaro odayga dhimashadiisa kadibna uu noolaado wuxuu noqon doonaa mid u duceeya oo